suuqa labaad ee ugu weyn magaalada Muqdisho oo ah suuq bacaad ee degmada Yakshiid ayaa ugu horeen booqasho ku tagay gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed oo uu heliyo gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada maamulka gobolka Banaadir iyo gudoomiyaha degmada Yakshiid waxaana ujeedka kormeerka uu ahaa mid uu duqa magaalada Muqdisho ugu kuurgalayay dhaqdhaqaaqa ganacsi ee ka jira suuq bacaad iyo sida ay ganacsatada suuqa diyaarka ugu yihiin inay ka qayb qaataan horumarinta caasimadda. qaar ka mid ah ganacsatada suuqa iyo bulshadii ka dukaameysanaysay ayaa si farxad leh ku soo dhaweeyay maamulka gobolka Banaadir ee soo booqday suuq bacaad iyadoo duqa magaalada Muqdisho uu mid u gacan qaadayay dadkii kala duwanaa ee suuqa ku sugnaa waxa uu qaarkood ka dhageystay cabashooyinka ay qabaan iyo sida ay u taageersan yihiin horumarka ay dawladda ka wado dalka. sidoo kale gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa socod ku maray wadada isku xirta isgoosiyada afarta darajiyo iyo Tawfiiq ee degmada Yakshiid oo ah wada aad u mashquul badan waxaana inta wadada socday kula kulmay qaar ka mid ah darawalleeda gaadiidka dadweynaha dhalinyaro ganacsatada ku ganacsata dukaamada ku yaala hareeraha wadada iyo odayaal dhaqameed isagoo bulshada ula kulmay kala hadlay in ay wax walba ka horumariyaan Soomaalinimada xasiloonida iyo ka qayb qaadashada horumarka caasimadda. ugu dambeyn duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed ayaa booqday baarka Tayo oo ah maqaaxi ay isugu yimaadaan bulshada qaybaheeda kala duwan waxaana gudoomiyahankaasi ku soo dhaweeyay shacabkii goobta ku sugnaa oo ay u badnaayeen dhalinyaro isagoo ku dhiirigelinayay in mas'uuliyiinta dawladda ay yihiin adeegayaal u khidmeeya shacabkooda. gudoomiyaha degmada Yakshiid ee gobolka Banaadir ayaa booqashada kadib u mahadceliyay maamulka gobolka Banaadir. degmaduna maanta waxay dareemaysaa farxad waa u jeedin dadweynihii waa soo wada baxeen ayagoo dhahaya gudoomiye weligeena noo yimid ma arkin waa gudoomiye noogu horeeyaa tahay marka mudane gudoomiye aadan kaaga mahadcelinaynaa. ummaddu waxay u baahan tahay dhiirigelin waxay u baahan tahay umaasho waxay u baahan tahay la jir insha Allah taala intaan in ka filan ka filan doona hadda waa la idmo. gudoomiye ku-xigeenka arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir Cabdullaahi Cilmi Xaaji Ereg waxa uu tilmaamay in horumar ganacsi uu ka jiro degmada Yakshiid mool aanan filaynin sida qaabka uu dhisan yahay iyo quruxda oo aad iyo aad in lagu soo laabto asaga ka dalbanayo inaan ku aragno Rugsan Mool oo ganacsatada Soomaaliyeed ee si aad u qurxoon oo caalami ay u dhisteen waa wax lagu farxo waxayna calaamad weyn u tahay in bulshadu ay diyaar u yihiin in ay dhankooda sameeyaan dhankii dawladda oo ku dhimaneedna hadduu Ilaahay yiraahdo inaan anaga buuxino waa meel loogu talagalay in dadku ay u yimaadaan si rasmi ah cunno haday noqon lahayd haday adeegii goonida noqon lahayd haday noqon lahayd nasashada haday noqon lahayd xafladaha waana wax lagu daydo waxaan kula talinaynaa dadka kale inay ku daydaan oo ay sameeyaan ruga sidaan oo kala ah magaca lagu tilmaamana Rugsan waa ay tahay waa run. gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Mudane Taabid Cabdi Maxamed waxa uu ka warbixiyay kormeerka uu ku tagay degmada Yakshiid. waxaa sidoo kale xusid mudan moolka intaan soo gelin banaankiisa waxaan ugu tagnay odayaal Soomaaliyeed oo garti Soomaaliyeed ee dhaqanka Soomaaliyeed geed hoostiisa la fadhiya oo xaaje ku jira oo wax danta ummad Soomaaliyeed oo ka xaajoonaya gaar ahaan degmadan wax dan u ah oo qaabka dad ganacsada ay la shaqeystaan iyo iyaga isfahan si uga dhal lahayn geedka hoos fadhiya geedkan ugu tagnay waxaan iri waa sida loo baahan yahay iscafinta ama dibulshisiinta waa geed hoostiisa inay ka soo bilaabataa. annaguna waa garab istaagi doonaa Ilaahay idinkiis reer Yakshiid waxaan leenahay gaar ahaan suuq bacaad annaga waa nimid waana ku soo noqon doonaa insha Allah sida quruxda aan noo soo dhaweyseen dadka gaar ahaan noo soo dhaweey meeshan iyo sida wanaagsan oo gudoomiyaha uu u agaasimay ayadoo dadku maanta ay diyaar noo heelan yihiin waa garab istaagi doonaa insha Allah. ganacsada waxaan rabaa ugu dambeyn inaan ku dhiirigeliyo fursadaha wanaagsan ee ganacsiga abuurteen sii wada annagu ka gobol ahaan waxaan naga go'an ganacsiga inuu bulaalo ganacsada aan garab istaagno wixii wadooyina iyo wixii la in la hagaajiyana inaan ka garab istaagno oo iskaashano aad iyo aad ay u mahadsantihiin mar labaad iyo mar saddexaad reer Yakshiid waxaan leenahay waa mahadsantihiin. Nuur Saciid Taaliil SNTV magaalada Muqdisho.